iyadana wax yar ka iraahdo xaaladda dalka Soomaaliya marayo oo runtii bariyihii u dambeeyay ka muuqata cakirnaan dadkana aad moodid in ay rajo xumo badan ay soo galayso waxaan insha Allah u rajeynayaa dadka Soomaaliyeed inaynan rajo dhigin rajadan ay gacantooda ku jirto oo ay mar walba u saciyaan in dalkan uu hore u socdo gadaal u soo noqon waxaan ognahay dalku inuu doorasho galay waxa si cad madaxweynaha kowdii May oo baarlamaanka federaalka hortiisa ka sheegay in doorashada iyo nidaamka amniga oo runtii muran badan ka jiray oo caqabad ku ahayd inay doorashadu hirgasho isbedeladii dhacay bishii Abriil iyo khalalaasihii ka dhacay Muqdisho kadib oo goostay inuu amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyo si ay shaqadaas u fusho waxa 27kii May mar labaad dawladda federaalka ah ee dawladaha xubnaha ka ah ay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya doorashada iyo amniga dalka inuu ra'iisul wasaaraha hogaamiyo runtii wixii lagu heshiiyay inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadka heshiiskaas galay waxaan rajaynayaa heshiiska sidii uu ahaa inuu fulo ra'iisul wasaaruhuna oo runtii doorashooyinka iyo amniga dalka mas'uuliyadda la saaray uu guto madaxda kale oo madaxweynuhu u horeeyana in ay wixii ay ballan qaadeen ay fuliyaan oo fursadaas ay ra'iisul wasaaraha siiyaan si uu shaqooyinkiisa u guto madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalkana ay gacan ku siiyaan sidii doorashadaas ay ugu dhici lahayd si hufan oo carqalad yar waxaan xaqiiqo ah oo qarsoonayn in dadka qaybtiis nidaam siyaasadeedkii muddada dheer 30 sano ayna soo haystay oo runtii Soomaaliya halkaas dhigay aragaasna u yeelay oo siyaasiyiinta qaybtooda ay mararka qaarkood isticmaalaan oo ah waxay rabaan haddii waayaan inaan waxba la helin arrintaas maanta waxaan rajaynayaa aniga oo runtii halka baaq uga diraya siyaasadda noocaas in laga waantoobo loo gudbo siyaasad furan dadka u dhaxaysa ilaahay la aamino la dhaxdhigo dadka mustaqbalka dalkooda inay iyagu ka tashadaan aan carqalad la gelin habsamo u socodka nidaamka doorashada Puntland tusaalaheedu waa u muuqdaa dhaliilaha dhacayana inta badan waan dareemayaa doorashada ku saabsan oo baraha bulshada ka dhaca kalsoonidii baa dadka dhuntay waxa weeye markii aan lahayn doorashaan qabanayna lama hubo lama yeelayo lama bixinayo registrationku ma dhacayo negativitygu dadku way badnaayeen sida uu xaamid halka sheegay mar walba dadka Soomaaliyeed 30 sano oo negative experience bay leeyihiin marka shakigu waa ku badan yahay waxa kaliya looga bixi karaa in hoggaanka markaas jira uu go'aansado inuu dadka shakiga ka saaro oo muxuu uga saari karaa inuu si ficil ah wax u qabto